munaasabadani ayaa ahayd mid ay ku qalinjabinayeen dacadii labaad ee markiiska Cismaan Reydal. Tirada ardaydani ayaa noqonaysa 17 arday kuwaasi iskugu jira wiilal iyo gabdho, waxaana ay ka qabsoontay xaafadda Sheekh Cismaan ee galbeedka magaalada Boorama, gaar ahaan masaajidka Cismaan Reydal, waxaana badiba kala soo qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo ay kamid ahaayeen qaar kamid ah culimada Boorama, Suldaan Xasan Xaddi Baade oo kamid ah salaadiinta dhaqanka gobolka Awdal, waalidiinta dhalay ardayda qalinjabinaysa iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. waxaana soo qaban qaabiyay madashani maamulka iyo macallimiinta markiiska. ugu horeynba halkaasi waxa ka hadlay mas'uuliyiintii kala duwanaa ee kala soo qayb galay munaasabadda, iyaguna hambaliyo bogaadin la wadaagay ardaydan ee dhamaysatay xifdinta Qur'aanka Kariimka. ilaahay subxaanahu wa ta'ala kalaamkiisa halkan aanu fadhina caawo ardayda qalin jabisay. ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha ka dhigo jalsadeenan jalso maartay ilaahay ilaaliyo marxuuma ah oo sakiiradu soo degto Allah ka dhigo jalso marka kala tagnana ilaahay maartay xifdiyo ilaaliyo Allah ka dhigo macsuuma ah. Allahumma ij'alna min ibadika al-maghfurin marhuumin. ardaydana maartay waxaan iliya awriba Allah ka hayo iliya awri Allah ka hayo oo maartay quraanka barteena kuwii ku amal fala Allah ka dhigo kuwii ku amal fala oo maartay waxa weeyaan markay weynaadaan iyo markay yar yihiinba Allah ka dhigo min ahli al-Qur'an. anigu waxaan kamid ahay waalidiinta ardayda xaafadan Sheekh Cismaan. waxaan waalidiinta fariin ugu dirayaa oo ku waaninaya in waxa ugu wanaagsan ay tahay ardayda macaawa qalin jabinaysa ee fadhida miskiidka quruxda ka muuqata iyo quraanka nuurkiisa ee ay sitaan inay waalidiintu xaafadan Sheekh Cismaan ama xaasley la yiraahdo inay ku dadaalaan sidii ay uga qayb galin lahaayeen markaska iyo quraanka kariimka. بعثت معلما وقال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنيئا لكم أهل الحفلة، أنتم على خير كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين يشتغلون بالقرآن يدرسون القرآن ويتعلمون القرآن كما الرسول صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. كوحويان horta waan idin ducaynaynaa ilaahay idin barakeeyo kuwii ilaahay subxaanahu wa ta'ala kitaabkani cidun ba xambaarta kuwii xambaaray ilaahay idinka yeelo. in walowba kitaabka quraanka ka faa'iideyso yar yarow waaweynow nin walowba intaad nooshahay maalmaha aad nooshahay ka faa'iideyso. waa safar iyo socoto waxaan ku jirnaaye wixii aad ku socon lahayd aakhiro ku tagi lahayd ee jannatul firdaws ku kasban lahayd waa kitaabka quraanka ka faa'iideysa insha Allah. macallimiintii bartana khayr Allah siiyo, waalidkiidi ku tabcayna khayr Allah siiyo, innagana khayr Allah siiyo, culimada idin wacdaysana khayr Allah siiyo. waad yeeshiin nin walba waalidkaagi xusuusnow wuxuu kugu leeyahay ku baro kitaabka quraanka ka baro. gabagabadii gunaanadkii halkaasi waxa shahaadooyin lagu guddoonsiiyay dhammaanba 17 arday ee dhamaystay xifdinta Qur'aanka Kariimka. Suxufi Cisqi, magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal.